magaalada Nairobi ee Kenya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo maamulka koonfur bari ee 14 May doorashadiisu ay ka dhacday deegaanka la yiraahdo hoos qaboobe duleedka magaalada Marka soo madaxweyne uu ka yahay Umar Ali Ahmed oo loo garan og yahay Umarey munaasabadan hadaba ka qabsoontay magaalada Nairobi ee Kenya waxaa ka qayb galay qabaa'ilka maamulkan samaystay ee digilka ka kooban ee degan Shabeellaha Hoose dadka u dhashay ee degan magaalada Nairobi dabadeedna waxay ku taageereen oo garab iyo hil iyo hooba ay la garab istaageen maamulkan ee la yiraahdo koonfur bari ee ka go'ay koonfur galbeedii saddexda gobol ka koobnayd inta aanay la soconin maamulkan koonfur bari wuxuu maamulkan haddaba uu xukumayaa Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe waa laba gobol oo labaduba koonfur galbeed iyo Jubbaland laga soo jaray oo loo bixiyay maamulkaas koonfur bari madaxweyne loo magacaabo Umarey haddana waxaa dhiman in lagu dhawo la sameeyo xildhibaanadii iyo wasiiradii marka shacabka ama jaaliyadda reer Nairobi oo hadda aan u joogno aan u nimid waxaan ka codsanaynaa in taageero dhab ah inay siiso koonfur bari dowladda Soomaaliya sidaas oo kale waxa ayagana aan rabnaa inay aqoonsadaan ayna soo dhaweeyaan dowladda ka dhalata dowlad goboleedka koonfur bari dhibaatooyinkaas ay waxyaalaha tusaalahaan waxaa ka mid ah deeqaha la bixiyo wadada hadda ka soo baxday ex-control markii la keenay afgooye meesha lagu joojiyey haddana waxaa laga bilaabay budul baraaba laga bilaabay ilaa baraabasi ilaa aeroboortka loogu tago marka waxay ku muteysteen ciqaabtaas tusaalaha ugu yar way marka Jubbaland tusaalahaan Jubbaland maba soo gaarin jamaam iyo jilmi maba soo gaarin ilaa hadda xilligii lagu dhawaaqay ilaa hadda ma soo gaarin ayadana markii ugu dambeysay soo dhaqaaqay jamaam waxaa laga suubiyay xasuuq fara badan laga suubiyay oo lagu xasuuqay magac ahaan lagu xasuuqay sababtoo ah diyaaradaha Mareykanka hawada ay ka duqeeyaan Jubbaland dhulkay ka duqeysay waxa lagu baabiyay waxay ahayd meesha lagu xasuuqa caruur iyo dumar lagu xasuuqa marka dhibaatooyinkaas waxay keeneen dadkan inay ku dhawaaqaan koonfur bari marka waxaan leeyahay arrinta sababahii keenay taas ay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. It is an honor to stand before you today and express my support for this ceremony of Southeast State of Somalia. The people of this new state has demonstrated remarkable resilience, determination, and overcoming challenges and advancing national development. They have continued strengthening institutions, promoting security, enhancing economic growth, improving the lives of their people. This support ceremony and the progress was achieved through dialogue, cooperation, inclusive governance that reflects the commitment of their people. They have shared vision of unity and national progress. This effort deserves recognition and support of all stakeholders, both within Somalia and among the international community. As a friend of our President of Southeast State, Elias Umarey, we encourage continued collaborations, respect of democratic principle, and peaceful engagement in addressing national priorities, sustainable development, security, prosperity, that can only be achieved through collective effort and mutual understanding. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. munaasabadan haddaba ka qabsoontay magaalada Nairobi ee Kenya oo kaliya ma aha wadamo kale oo Yurub iyo Ameerika ku yaalana munaasabad tan la mid ah ayaa lagu qabtay oo lagu taageerayo maamulkan ee koonfur bari kuwa kale oo fara badanna waa la diyaarinayaa oo lagu taageerayo koonfur bari waxaa haddaba si isdaba jooga u soo kordhaya taageerada buuxda ee garab istaagga loogu muujinayo maamulkan cusub oo ka mid noqonaya maamul goboleedyada ka jira ee dalka
welise dowladda federaalka ma aysan aqoonsanin waxaase laga sugayaa in ay aqoonsadaan iyadoo mar horeba fariin dalbasho aqoonsi ah la gaarsiiyey dowladda dhexe ee Soomaaliya kaliya laga sugayo in qalinka lagu duugo dabadeedna la aqoonsado aragtidaadu maxay tahay qaybta hoose ee commentiga dib muuqaalkan uu ku soo gaarana la wadaag saaxiibada waray waxa isa soo taraya taageerada loo muujinayo koonfur bari tabada labada ay tahay inuu ku wada kulmayno nabadgelyo